taariikhda Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa dhageystayaal. magaciisa oo buuxo waxa uu yahay Axmed Maxamed Islaam oo ku magac dheer Axmed Madoobe. waxa uu muddo ahaa shakhsiyaad ku cadcad siyaasadda gobollada Jubbooyinka, haba ugu horeysay magaalada Kismaayo oo ah magaalad baaxad weyn, sidoo kalena leh deked ay ka soo galaan dakhli aad u fara badan. sidoo kalena waxa uu madax ka ahaa magaalada Kismaayo ilaa iyo intii ciidamada Itoobiya ay ka rideen maamulkii maxkamadaha sanadkii 2006. sanadkii xigay ee 2007 waxaa xidhay ciidamada Itoobiya oo ku hayay Hotel Gion oo ku yaala magaalada Addis Ababa, waxaana lagu sii daayay wadahadallo uu ku aqbalay in xil loo magacaabayo xukuumaddii Sheekh Shariif Sheekh Axmed, laakiin markii dambe ayuu ka goostay oo uu diiday xilkii loo magacaabay. sanadkii 2008 maleeshiyaadkii Raas Kamboni uu hoggaankeeda ka mid ahaa oo ay isbahaysanayeen Al-Shabaab ayaa haddana magaalada Kismaayo dib ula wareegay. muddo kadib waxaa bilaabmay in labadii urur ay hubaysnaa loolanka gacan ku haynta magaalada Kismaayo ay isku qabsadeen. ugu dambeyntiina waxaa si buuxda Kismaayo iyo koonfurta Soomaaliya badankeeda gacanta ku dhigay Al-Shabaab sanadkii 2009. mar kale ayaa haddana bishii Sebtembar sanadkii 2012 ayaa Al-Shabaab magaalada Kismaayo ay ka saareen ciidamada Kenya. uu haddana Axmed Madoobe uu noqday xubin muuqata oo ka tirsan maamulka maxalliga ahaa ee magaalada Kismaayo loo sameeyay. 15 May sanadkii 2013 waxa uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ee la dhisay oo khilaaf badani ka dhashay arrintaasi. hase yeeshee waxa ay warbaahinta tawinayeen warar isburburinaya. qaarkoodna waxa ay sheegeen in uu isagu iskiis isku caleema saaray markiisii hore, halka warbaahinada qaarna ay sheegayeen in cod aqlabiyada uu ku guuleystay uu yahay madaxweynaha Jubbaland. inkastoo ay isla markiiba maamulkiisa taageereen dowladaha deriska sida Kenya iyo Itoobiya, haddana xukuumaddii federaalka ahayd ee xilligaasi muddo dhowr bilood ayay ku qaadatay in ay aqbasho maamulka Jubbaland ee xilligaasi uu madax u ahaa Axmed Madoobe. khilaafkii dhex yeelana dowladdii federaalka markii dambe waxaa lagu dhameeyay dhexdhexaad oo uu qayb ka ahaa ururka IGAD. qiyaastii 4 bilood kadib 13 Sebtembar 2013 ayaa kolonyo uu watay Axmed Madoobe waxaa qarax lagula beegsaday gudaha magaalada Kismaayo, halkaasina uu ku dhaawacmay. sidoo kalena weerarkaasi waxaa sheegtay ururka Al-Shabaab. ergeygii gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya xilligaasi Nicholas Kay ayaa ku tilmaamay Axmed Madoobe in uu yahay qof qayb muhiim ka qaadanaya nabadeynta xal u raadinta dalka Soomaaliya oo idin. xilalkii uu soo kala qabtay Axmed Islaam Axmed Madoobe waxay kala ahaayeen sida tan: sanadkii 2006 gudoomiyaha Jubbada Hoose maamulkii midowga maxkamadaha Islaamiga, 2009 xubin sare oo ka tirsan ururka Xisbul Islaam, 2010 waxa uu noqday taliyaha ciidamada Xisbul Islaam ee gobollada Jubbada Dhexe iyo Jubbada Hoose. isla sanadkaasi 2010 bishii May waxa uu ka baxay ururka oo waxa uu noqday markii dambe hogaamiyaha ururka Raas Kamboni. bishii Agost 2013 ilaa iyo bisha Agost 2019 waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. 22 Agost 2019 waxaa mar kale loo doortay madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. doorashada waxaa ka hadlay khilaaf fara badan in ay ka taagan tahay, waxayna qaar ka mid ah mucaaradka ay ku eedeeyeen in ay hayd hanaan uu isagu muquuniyay Axmed Madoobe. ergeyga xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya u qaabilsan James Swan doorashada uu mar kale Axmed Madoobe ku noqday madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland. waxa uuna warqad u diray gudoomiyaha guddiga doorashada, waxauna u sheegay in aysan suurtagal ahayn arrinta doorashada iyo sida hanaanka ay u socoto, balse gudoomiyaha guddiga doorashada Jubbaland ayaa warqad jawaab ah u diray, waxauna ku tilmaamay in aysan jirin wax isdibmarin. waxa kale uu sheegay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka in qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba ay ixtiraamaan shuruucda u yaala dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda federaalka ah, oo aysan soo faragelin doorashada lagu maalmarinayo madaxa maamulka Jubbaland.